Gabaldhac iyo guura bahalayn lagu baadigoobayo ganatada gumaadka shacabka Soomaaliyeed ee argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka BSF ayaa howlgal ka sameeyay deegaano dhaca buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari, waxaana ka mid ahaa goobaha ay ciidanku tageen deegaanka Xabley oo indhawaale cabashada shacabku isa soo taraysay, halkaas oo ay Al-Shabaab ka samaysteen xarumo ay ku dhuumaaleystaan shacabkana kaga qaadaan dhaqaale iyo xoolo baad ah, iyagoo oo dhowaan halkaasi afduub kaga kaxaystay 2 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah, kuwaas oo weli baadigoobkooda lagu jiro. Ujeedka howlgalkan ayaa salka ku hayay in kooxdaas meesha laga saaro si bulshadu ugu noolaato nabad iyo xasilooni waarta. Canaasiirta habowga ah ee Al-Shabaab ayaa markii ay arkeen cududa iyo baaxadda ciidanka bilaabay kala carar iyo jahawareer, waxayna ciidanku xaqiijiyeen in gebi ahaanba meesha laga saaray, isla markaana aysan jirin xarun dhuumaaleysi oo ay khawaarijtu isku sii qariyaan, loogana daba tegi doono meel kasta oo ay damcaan inay shacabka ku waxyeeleeyaan. howlgal qorshaysan waa soo baxay magaalada Boosaaso. howlgalkaas oo aan ku nimid deegaanka tuulada Xabley kadib markii aanu helay xogo cadow oo nimanka khawaarijta ahaa ummadda Soomaaliyeed walba wareeriyay ayaamaha kan bay ka soo baxayeen wareer istaba joogo dadka ay dhibaateeyeen kuwa ay afduubtaaniin oo ilaa iyo iminka aan lahayn toddobaad ay la maqan yihiin dad ay boobaaniin bakhaarey dhacaan kuwa ay xirxirtaaniin ayaanu soo gaaray tuulada Xabley. howlgalkaas ciidanka BSF ayaa aaminsan inuu dhacay gabalka cadowga shacabka Soomaaliyeed ee Al-Shabaab, kolkan ay ka socdaan howlgallo qaybaha kala duwan ee dalkeena, waxayna markasta iyo goob walba kula dirirayaan Al-Shabaab, iyagoo oo weheshanaya dhammaan ciidanka Soomaaliyeed iyo shacabka degan dhulka ay dirirtu ka socoto.